hargeysadaan Itoobiya ka dhex faa'iideysanayso shanta Soomaali hal inay ahaataan fiican waxaan u arkaa ciidamada Jubbaland haddii la qarameeyay meel fiican horumar fiican la gaarsiiyay eolka hore maamul goboleed hadda laakiin waa la qarameeyay ma fahanteen haddii la qarameeyay waxay ku diidaan madaxweynahan hal mid ka cabsanaa wixii maamul goboleed dhan in la soo afjiraaro oo hal qaran leh Soomaaliya lagu taagnaado hadda waxaan dhici karta macnaha in oo gobol iyo waxaas oo maamul goboleed laga dhigo in laga faa'iideysto waxay tahay shanta Soomaali in iskuul keen hal mar asal waxay ahaayeen ciidan Jubbaland ahaayeen laakiin hadda waxaa la siiyay darajo fiican waa la qarameeyay marka inay diidaan maan darajo fiican waaba loo dalcabay inay diidaan maan marka Itoobiya soo weerar kartaa wadankan ilaa waxa maamul goboleed sheegtay ma Itoobiya had sida hargeysadaan la sheegay waxay dhahay wadanaan ilaa haddana wadan ma ahan Itoobiya ka dhex faa'iideysanayso marka waxa ilaahay inay ma Jubbaland la qabtaan rabaa oo ma qaran laga dhigo haddii laakiin maamul goboleed ay sheegtaan ma waa la faa'iideysan karaa dhinac walba dhinac Itoobiya ugu jiro dhinacna waxa ugu jiro midowda qaran waxa iska dhaadi